marka aan arkay wadooyinka oo faaruq ah, dadka oo dhanna ay ku jiraan guryahooda, cabsi ay ka cabsanayaan inay ku dhacdo corona, ayaa waxaan dareemay waxay tahay qiimaha ay leedahay noloshan. waxaan dareemay waxay tahay qiimaha ay leedahay caafimaadka iyo nicmadooyinka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isiiyey aanan ugu mahadcelinin. waxaan dareemay waxay tahay qiimaha ay leedahay xornimada, inaad banaanka aad iska socotid adigoo waxba aadan ka baqaynin. waxaan bartay waxay tahay inaan ahay ibn aadam daciif ah, u baahan rabbigiisa caza wajal. waxaan bartay waxay tahay inaan ku dadaalo nadaafada iyo tahaarada iyo gacmahayga mar walba inaan dhaqo, inaan ku dhaqmo aayadda Ilaahay uu leeyahay inna Allaha yuhibbu at-tawwaabiina wa yuhibbu al-mutatahhiriin. Ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa asiga u laabta mar walbana ku dadaala tahaarada. waxaan bartay nolosha si walba ay u adkaato, xaaladaha si walba ay u adkaato, in aan nolosheeda sii wato, waxbarashadeeda aan sii wato, shaqadeeda aan sii wato, xitaa guriga aan ku barto ama guriga aan ku shaqeeyo. waxaan bartay waxay tahay in sabab walba aan la imaado aan ugu badbaadi karo cudurkan, kadibna aan tala saartay rabbigayga caza wajal. sababtoo ah wuxuu leeyahay waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh. qofki Ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarta uu ku filan yahay. waxaan bartay waxay tahay inaan waqti la qaato nafsadeeda, dibna aan u xisaabiyo, inaan waqti aan la qaato familkayga, waalidiinteeda iyo walaalahayga. waxaan bartay geerida inay tahay xaq, in cudurkan aan ku geeriyoodo ay tahay 100%, laakiin mar walba inaan geeriyoon karo, aan dhiman karo ay tahay 100%. taa awgeeda mar walba in aan isku diyaariyo geerida. waxaan bartay waxay tahay in midka keliya caafiya qofka xanuunsan inuu yahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala. haddaba adiga idaabanaya, maxaad ka baratay cudurkan corona?